waxaan leenahay marka haddii la rabo in ilmo naxariis badan la soo saaro waa inuu noqdaa guriga mid loogu naxariisanayay markaan hadalka soo koobo waxaan leenahay ilmaha sidaynu ula dhaqmayno waa inaynu in badan ka fakarnaa waa inaynan xaqirin oo yaraysan waxaa laga yaabaa ilmihiinna marka guriga soo gashaan dadka badh siduu usha aabbaha ama hooyada isageegaya aabbuhu markuu soo galo inuu sidii jiir yaroo la qabtay meel isku nabowno ismiskiiniyo waayo waa baqa waa colaad isagii odayga waxa u dhexeeya waxaa la arkaa mararka qaarkood in loo tilmaamo mar allaaliya marka dad soo galaan isaga la xaqiro la yidhaahdo ordo haddaba guriga gala dadkii waaweynaaba meesha fadhiya soo bixina laakiin nebigu calayhi salaatu wasalaam siduu ula dhaqmi jiray bal u fiirso hal xadiid aan idin siiyo anas ibnu maalik saxaabiga la yidhaahdo isagoo wiil yara oo 10 jira nebiga loo keenay inuu nebiga u adeego la shaqeeyo 10 sannadoodna nebigu markaa la joogay calayhi salaatu wasalaam oo u shaqaynay anas ibnu maalik wuxuu leeyahay nebiga calayhi salaatu wasalaam shaqaal uu ahaa nebigu u shaqaynay nebigu wuu waayey markaa maalin buu u baahday markuu u baahday buu waayey ma odhanin nebigu qof mee hal doono yarkiyo iminka la soo qabto halay keeno ma odhan cidna awaamir ma siinin isagaa baxay xaguu nebigu qabtay calayhi salaatu wasalaam wuxuu u baxay inuu baadi doono wiilkii shaqaale ahaa isagoo carruur kale la cayaaraya buu u yimi carruurtiioo wada cayaaraysa markuu nebigu yimi calayhi salaatu wasalaam may didin carruurta waxaa laga yaabaa innaga macallinka qur-aanka dhiga carruurtu iyagoo meel ku cayaaraysa hadduu soo galo inay xabadiba meel ka dhacdo la kala dhuunto baqa laga qabo macallinkaas